Waa idin salaam asxaabay, waxaa halkan kasii wadi doonaa taxanii noo socday oo magaciisu ahaa Dreamy Freaking Fairytale. Taxanaha waxaa ka sameeyey 3 qayb hore. Fadlan haddii aad soo daawan channelka dib ugu laabay soo daabo. Part 4 intaa guda gelin waxaa kaa codsanaya inaad channelka subscribe isu saartid oo aad muuqaalka noo saartid. Part 4 waxaa ka bilaabanaysaa meesha ku dhamaatay Part 3. Waxaas oo dhan markay dhacayeen Moon kor ayuu fiirinayay. Kadib Baekdo wuxuu soo taagaya gacanta. Moon markuu arkay in Baekdo uu shin dhulka kicin rabo. Moon wuxuu soo socodboobsiinaya dhinaca Baekdo. Baekdo gacanta ayaa laga dharbaaxaya. Moon ayaa dhulka kicinaya shin oo caawinayo. Daana markay aragto Moon shin oo gacanta horteed iskaga haystaan waxaa ku kacay dhiigkarka dadka horteed ay ku dharbaaxaysaa Moon ayadoo xanaaqsan ay iskaga tagaysaa meesha. Kadib Moon wuxuu u siibayaa suudkiisa wuxuuna u gelinayaa Shin dadka horteed ayuu gacanta ugu soo qabsanayaa wuxuuna keenayaa xafiiskiisa. Kadib wuxuu bilaabaya inuu canaanto Shin wuxuuna ku dhahayaa dadkaas maxaa iskaga celin weysay markay sidaan dhan ay ku bahdilayeen. Aniga waaba iskaga celisay ayaga maxay iskaga celin weysay kaliya anigan kaliya ma ay adag tahay. Shin wuxuu ku dhahayaa markaan aniga ayaa qalad ka sameeyay aniga halkan waxaa ka ahay shaqaale kaliya. Moon wuxuu u sheegaya haddii aad tahay shaqaale ayaga uma tihid aniga ayaa ii tahay sidee raam kuu qaylin karaan qof kaliya xaq u leh inuu ku qayliyo shaqaalihiisa waa aniga sidaas u fahan. Shin wuxuu ku dhahayaa waxaas inaysan dhicin ka soo qaad adiga sidee tahay daangaaga xalkiisa war egasii. Moon wuxuu ku dhahayaa fiiri daankayga sidoo noqday waxaan u malaynayaa inuu hal ilig iga jabay xalkayga ma fiicno. Ayada wuxuu ku dhahayaa hadda waxaa laga yaabaa inay daan xalkeeda uusan fiicnayn waa inaad u tagtaa. Moon asagoo sii bixiro wuxuu ku dhahayaa Shin run waaye daan waa isku faraandi gelinay laakiin wax jecel ah nagama dhexeeyo kaliya waxaan ahay sida laba qof oo shuraaka ah adigana way ogtahay inaad shaqadeeda aan jecleen orod iska soo dhaq wax kugu daatay. Kadib wuxuu u imaanayaa daana u sii socod gaarigeeda wuxuu ku dhahaa maxaa iigu dharbaaxay dadka hortooda aniga hore waan kuugu sheegay intaa imaanin haddii aad inta timaad mar walba aad timaad waxaa laga yaabaa inaan Shin aan ku sii dhawaado oo aan mar walba aan caawiyo. Daana waxay ku dhahaysaa waan kugu yeeray dharbaaxshada waxay ahayd inaad dadka hortooda kugu dhagraaco adiga sidaan dhan maxay iskugu bedeshay. Asagana wuxuu ku dhahaa waxaan ahay qof waalan qofka waan wuxuu rabo ayuu sameeyaa. Ayada waxay ku dhahaysaa haa sidaas ayaa loo baahan yahay kaliya waxaa kuu dhiman inaad dharka aad dhigatid. Moon wuxuu ku dhahayaa walaalay dhibkan iga kor qaad aan kaa nafiso raaxada dhan waa ii diiday aniga miin boomel aad kasoo gadatay suuqa. Daana hal mar ayaa waxay u qaylinaysaa maxaa kaa galay waxayna raacaysaa gaarigeeda. Kadib waxaa arkaynaa Moon oo suuliga jooga waxa uu imaanaya Baekdo wuxuu ku dhahayaa maxaa saan dhan gabadhan ugu difaacaysaa Shin shaqaalaha kale maxay dheer tahay ama jeclaatay. Moon wuxuu ku dhahayaa haddii ayada i jeceshahay ama aniga aan jeclahay adiga shaqadaada ma aanay xafladaada ku laaban ee toos guriga u aad aniga iyo adiga isku mid manihiin waa kala duwannahay. Moon markuu baxo Baekdo wuxuu soo xasuusanayaa markuu faqiirka ahay inay ka tagtay gabadh uu jeclaa ina ka raacdin taajir ah wuxuuna dhaha lagama yaabo inaan mar labaad aan guul dareysto. Intaas kadib Shin waxay imaanaysaa Raana waxayna ka raaligelinaysaa wixii dhacay waxayna ku dhahaysaa maadaama xaflad aan kaa qaso dhar ka helay aniga kuu soo dhaqaayo. Raana waxay ku dhahaysaa waa lagu yaqaanaa dadka faqiiriinta inay markii ay qalad galaan waxay iska dhigaan dad masaakiin raaligelinta mar walba ay waajib ay ku tahay haddii xataa aadan wax qalad ah samaynin dadka faqiiriinta waa dad aan qiimo lahayn. Shin waxay ku dhahaysaa haddii aan ku raaligeliyo lagama yaabo inuu qiimihayga hoos u dhaco. Raana waxay u sheegaysaa inay is dhiibto oo iskaga harto Baekdo haddii kale waxaa dhibaateyn doontaa naftaada ninna ma heli doontid. Shin meeshu iskaga tegaysaa iyadoo socod waxay niyadda iska dhahaysaa aniga waxaan u malaynaya inay ii qornayn inaan la kulmo dadka fiican sidaa may ahaan doontaa nolosheeda ilaa aan ka dhimanayo. Midig iyo bidix haddaan fiiriyo kaliya waxaan arkaya guuldaradeyda aniga maxaa unsur ma ahay maxaa dhibkan oo dhan igu dhacayaan. Moon ayaa u imaana wuxuuna ku dhahayaa haye wax kale maa dhac ii sheeg. Ayadana waxay ku dhahaysaa kaliya waxaa ii dhimay inaan qarxo sidaan u qarinayo xanaaqayga. Moon wuxuu ku dhahayaa soo bax isoo raac wuxuuna ka qabanayaa gacanta. Ayadana waxay ku dhahaysaa maya adduunka cadaalad ma taalo markaan dhashay ilaa hadda waxaan rabay inaan ku noolaado nolol wanaagsan sida dadka kale oo kale waxaa bilaabay inaan ku riyooyin waaweyn oo khiyaali aan rumooy weynin. Moon wuxuu ku dhahaa kawaran haddaan kugu caawiyo inaan bedesho noloshaada haddaa rabtid indhaha isku qabo. Shin waxay ku dhahaysaa Moon waa u fasaxan tahay wax walba aad rabtid waa samayn kartaa. Moon dadka hortooda ayuu ku shuminayaa Shin dadka xafladka soo qayb galay yaab iyo indhataag ayaa kasoo haraayo. Kadib ayagoo gacmaha is haystaan ayay kasoo baxayaan hoteelka gacantiisa ay iska fujinaysaa waxayna ku dhahaysaa waa isbedeshay ee maxaa dhacay waxaa hore igu dhahday inaadan jeclin riyadeeda ee maxaa ii caawisa maanta. Asagana wuxuu ku dhahayaa aniga kuma necbi qof walba xaq u leeyahay inuu rumeeyo riyadiisa aniga taas lay kugu caabiyey. Ayadana waxay ku dhahaysaa haa waa ku fahmay adiga aniga waxaa ii aragtay qof maskiina sidaas darteed ayaa igu naxariistamiya. Asaga wuxuu ku dhahaa adiga lay ma ii dhihino waxaa rabta samey. Shin waxay ku dhahaysaa haa waan ku dhahay laakiin sidaas dhan ii shumis ma ahayn haddana wax ma naga dhexeeyaan maxaa waa shumiskaas oo la isku mirbeelayo. Moon wuxuu ku dhahayaa aniga waxaa sidaas dhan u sameysay daacad ah waxaan ahaa qof xamaasadaysan had mar labaad ma ku celinaa. Shin waa iska kala tuuraysaa walaalo iga tag hadda dadka hortooda u tagaa. Moon wuxuu ku dhahayaa hadda dadka waxay ku arki doonaan inaan ku guuleystay qalbiga milkiilaha iska leh hoteelka ugu weyn magaaladan nimanka kale hadda waxay ku arki doonaan qof muhiim ah waxayna ku soo geli doonaan saf dheer. Shin waxay ku dhahaysaa waxaas reelay waaye iga tag wayna ka tagaysaa. Kadib waxaa arkaynaa Daana oo timi gurigeeda iyadoo xanaaqsan waxayna arkay labada bitac ilma adeerada ahayn cuntada cunayaan dad xabsiga dhexda soo daayay oo kale waxayna bilaabaysaa inay canaanato waxayna ku dhahaysaa aniga waa murugeysanahay adigna raashin aysan isku xaaqaysin miya. Ayagana waxay dhahaan dhib ma lahan kaale in soo fadhiiso cuntadan asal cunne. Daana waxay u qaylinaysaa qof burus soo dumira camal ayagana waxay dhahaysaa xal ma ahno inaan soo ogaanaa wixii saanan ay Daan ugu xanaaqsan tahay cunto cuno kaliya ma inaan inta u fadhino waa inaan howlgalnaa. Kadib Shin markay guriga timaado waxay arkaysaa suukii jeclaa guriga jooga wuxuuna iska dhigaa qof aan aqaanin wuxuuna ku dhahay iskay baro aniga waxaan noqon doonaa dumaashigaaga mustaqbalka. Suu hooyadan wuxuu u keenay hadiyad badan si uu iskaga gado duqda. Subaxdii markii la gaaro waxaa arkaynaa Moon oo jooga meesha tababarka macalinkiisa ayaa wuxuu ku qabanayaa qorsagaaro wuxuuna ku dhahay ii sheeg labadan biri maxaa ku haayo oo kaa qaldan haddii kalmkaa fuqaayay. Moon wuxuu ku dhahayaa macalinkiisa waxaa jira gabar aan jeclahay haddana ma jeceli. Macalinku la yaabay wuxuuna ku dhahayaa yaa maxaa gabar la qabo maa jecesha adiga. Moon wuxuu ku dhahayaa maya lama qabo laakiin gabadhaas waxay u egtahay hooyadeeda iyo Shin wax
iska eegayn dhinaca lacag jaceylka hooyadu waxay abeys kaga furtay si lacag badan u yeelato oo yaryarada u rumayso shiina waa sidaas oo kale waxay jeceshahay inay noqoto amiir Cinderella kadib waxaa arkaynaa shiin oo geesaha iska fiirinayso si aysan isku arkin Moon ayaa kor imaanaya isagana wuxuu bilaabay inuu iska sii boojay iyada Moon wuxuu ku dhahay hay salaama jirtay miya maanta maxaa weli miga xanaaqsan tahay shiin waxay ku dhahaysaa maya adiga maxaa kaaga xanaaqaya kadib aan la isku xanaaqsan asagana wuxuu ku dhahay wixii xalay dhacay iska hilmaam aniga waxyaabahaas ma daneeyay waaba ilaahay mar hore shiin waxay ku dhahaysaa Moon aniga xataa sidoo kale waxyaabahaas ma daneeyay waa wax laga soo tagay mar hore ay ka remove gareey maskaxdayda aniga nolosheeda kaliya ku mashquulsan waxaas agteeda wax kama ahan waxay u sheegaysaa in xalay intuusan shumin ka hor ay soo cuntay tixribadeed aad u macaan asagana wuxuu ku dhahayaa maxaa soo cuntay igu cilin kuma maqlinay shiin waxay ku dhahaysaa haa wuxuu ahaa cunto aad u macaan kadibna iskaga tagaysaa Moon yab ayaa kasoo haray wuxuu bilaabay inuu shakiyo afkiisa ayuu tataabanaya wuxuuna dhahaa tan ama afka balaayo ii soo bixisaa leh kadib waxaa arkaynaa shiin oo shaqadeeda ku jirta waxa uu imaanaya beegdo shiin wuxuu ku dhahaysaa hay mudan soo dhawow maxaa cabaysaa cabitaan ama rabtaa mise shaah ayaan kuu shubaa asagana wuxuu ku dhahaya waxaan rabaa inaan kula hadlo kadib shiin waxay isku shubaysaa shaahi ay kisay beegdo wuxuu u soo galayaa meeshii ay ku jirtay shiin wuxuuna gacanta ka saarayaa baraf wuxuuna ku dhahayaa gacantaas said ay u guduudatay kadib wuxuu weydiinaya adiga Moon maxaa idinka dhexeeyo ama uu qasbaayay ninkaas anigu uma bagine ayadana waxay ku dhahaysaa waxaas wax kama jiraan kaliya waa maamulihii shaqada waxaa laga yaabaa inuu xal said u soo cabay sidaas darteed ayayna waxaas u dhaceen asaga markuu cabsan yahay wax ka fakada ma lahan xataa wuxuu shumiyaa baalaha korontada waxa ark ma dhaafo lo xataa iri hadduu arko bas waaye shiin been ay u tiraarxinaysaa beegdo asagana wuxuu ku dhahayaa saas waay miya aniga waxaa rabaa inaan si fiican isku barano waxaan rabaa inaan kugu casuum stuudiyo khaaska inta isha ayaa ku badan shiin waxay ku dhahaysaa maxaa waaye sababtaan u kulmayno stuudiyo khaaska beegdo wuxuu ku dhahaa shiin waxaa rabaa inaan ku tuso wax khaas ah kadib wuxuu soo bixinayaa been wuxuuna u surayaa tinteeda kadib markii uu shiin ka soo tago waxaa ka hor imaanayo Moon beegdo wuxuu ku dhahayaa Moon hadda ay ciyaarta surun ah noogu bilaabatay Moon wuxuu ku dhahayaa okay waay noo bilaaw aan ku raaxaysan doonaa ciyaartaas asagana wuxuu ku dhahayaa mar kale ha ku celin wixii xal aad samaysay Moon wuxuu ku dhahayaa adiga yaa tahay marka waxaan sameynaa aan fasax kaaga qaadanayo beegdo wuxuu ku dhahayaa kaliya sug oo arag waxaan ku bari doonaa waxaan awood aniga kadib waxaa arkaynaa shiin oo iska fikiraysa waxa uu imaanaya saaxiibkeeda wuxuu ku dhahayaa maxaa kaa qaldan oo ka fikiraysa ayadana waxay dhahay maxaa ka fikiri lahaa asagana wuxuu ku dhahayaa adi fiiri uma jeed miya sidoo kuu jecel yahay Moon hal tal ayaan ku siinaya waa inaad tijaabisaa inuu ku jecel yahay iyo inuusan ku jeclayn Moon kadib shiin waxay u imaanaysaa Moon waxayna tusaysaa binkii u keenay beegdo si ay ugu masiirsiiso waxay kaloo sheegaysaa inay beegdo uu ka casuumay stuudiis khaaska ayna aadayso beri asaga markuu maqlo hal mar ayuu soo boodaya wuxuuna ku dhahayaa muxuu kugu wacay stuudiis khaaska muxuu kaa rabaa shiin waxay ku dhahay ma ogi laakiin adiga soo maran sidaas horta inta aanan aadin asaga waxaan rabaa inaan wax kaa ogaado kadibna dhinaciisa ayay u soo dhawaanaysaa waxayna ku dhahaysaa wixii hore waxay ahaayeen wax kadis ah hadda waa inaan si fiican u samaynaa haddaa rabtid indhaha isku qabo markay u soo dhawaato wuxuu niyadda ka dhahaa maya waxa inay dhacaan ma ahan waa inaa is adkeeya hal mar ayuu boodaya wuxuuna ku dhahaa walaalay iga siko meeshaa rabta aad aniga wax igama gelin shiin waxay ku dhahaysaa oo saas maa rabti inaa aada beegdo asagana wuxuu ku dhahaa waa inaa aadaa haddaad dharka ku aadi lahayd anigaa kugu caawinaayo kadib wuxuu keenayaa dukaanka dharka lagu gado wuxuuna ku dhahayaa dharkaa rabti soo qaado wixii qarash ah waa dhinacayga shiin sidii cabaal iskuu fiirinaysay wixii dhar meesha yaalay Moon wuxuu soo qabanaya dhar qurux badan wuxuuna ku dhahayaa waxaas dhar ma ahan kuwan qaado waa isteelkii u dambeeyey kadib shiin waxay imaanaysaa beegdo gurigiisa beegdoona wuxuu ku dhahayaa waxaan kuu diyaar cunto aad u macaan markoowaad waa inaa wada cunteenaa kadib waxay wada fadhiisanayaan miiska cuntada ayadana waxay weydiinaysaa maxay tahay sababta igu casuumtay stuudiyaha khaaska asagana wuxuu ku dhahayaa kaliya waxaan u baahnaa inaa waqti wada qaadano labadeena waxaa kaloo u baahnaa inaa wada shaqeyno kadib wuu istaagaya wuxuuna soo qabanayaa buug wuxuuna ku dhahayaa waxaan u baahnaa inaa wada shaqeyno adiga kaliya ii soo qor sheeko filin iyo sabir oo isla socdaan waxaan ka samayn doonaa filim kartoon ah ayadana waxay ku dhahay ani waxaas khibrad uma lihi kaliya sabirada inaan iska sabir lay jeclahay beegdo wuxuu ku dhahaa taas dhib ma lahan kaliya bilow waxaa jeceshahay aniga waan kugu caawin doonaa shiin waxay ku dhahaysaa ha runtaa waaye Moon xataa sidaas ayuu dhahay follow your enjoy asaga hal mar ayuu xanaaqaya wuxuuna soo jiidaya kursigeeda wuxuuna ku dhahayaa aniga kula joogo ninkaas warkiisa igu soo qaadin markaan ninkaas warkiisa maqlo aniga isfiilitada ay igu kacdo adiga ma ogid miya inaan ku jeclahay kadib uu soo dhawaanaya isoo shumiro hal mar shiin ayaa boodayso waxay ku dhahaysaa maya maya walaalo aniga holaas diyaar uma ihi kadib waxaa gadaashooda kasoo baxaya beegdo walaalkiisa hal mar ayay isku naxaysaa shiin beegdo wax ku dhaha walaalkiisa inta maxaa ka samaynaysaa lacagtii aan ku siiyey kugu filnaaweysa iyo ma soo dhamaysay aniga mar hore waan kuu sheegay lacagtaas waa tii ugu dambaysa aan ku siiyo kadib wuxuu isku daya inuu banaanka u bixiyo walaalkiis wuxuu bilaabaya inuu kashifo oo wax walba u sheego shiin wuxuu ku dhaha ninkan inuu yahay nin tugo been badan waqti dheer ayuu been kuu sheegayay ninkan wax walba uu sameeyo uma u toosaan waa nin aad u nasiib xun oo dadka xada fikradahooda waa koobi ku nool wax walba uu sameeyo wuxuu u malaya inay dadka jeclaanayaan buug ayuu u soo bixinayaa wuxuuna ku dhahayaa akhri buugan oo asaga qoray wax walba uu yahay waa ogaanaysaa lacagtan xataa wuxuu ku helay wuxuu sameeyey waxyaalo fulxun nafsadiisa xataa wuxuu ugu sheekaa inuu yahay directorka ugu fiican laakiin ma ahan waa faataalo xun shiin waxaas dhan markay maqasho waxay u sheegaysaa beegdo walaalkiisa walaalka wuxuu buugan u qoray si daacad ah laakiin waxaa rabtaa walaalka lacagtiisa inaa beebeen iskaaga cuntid beegdo wuxuu dadaal ku bixiyey siduu naftiisa u bedeli lahaa laakiin waxaa uga dhigtay buugan inaad ku rikaadaysid oo lacag ugu qaadatid waxaasna wax wanaagsan ma ahan beegdo wuxuu walaalkiis ku dhahayaa walaalow meeshan iskaaga tag waxay sheegi karta waaba sheegtee walaalkiis markuu baxo beegdo wuu raaligelinayaa shiin wuxuu ku dhahaa uu sheegin wixii inta ku aragtay Moon haddii ay dadkii ogaadaan way igu qosli doonaan shiin waxay ku dhahaysaa aniga qof muu sheegay kaliya waxaa u baahan tahay inaad naftaada aad ku kalsoonaatid oo adiga aad is aamintid waxayna u soo qabanaysaa buuggiisa waa inaad ku faantaa waxaa qortay wayna ka tegaysaa Moon oo soo dabagalay wuxuuna ku sugayay banaanka markay banaanku soo baxday Moon wuxuu ka wacayaa taleefanka ayadan siida ay u taabanaysaa maalintii xigtay Moon wuxuu imaanayaa hoteelka waqti hore isagaa kasoo hormaraya shaqaalaha hoteelka oo dhan Moon wuxuu rab inuu ogaado wixii ku dhacay shiin markay timaado hoteelka way agmaraysaa waxayna iska dhigaysaa
caddaynaysaa inaysan arkin Moon. Kadib waxaa arkaynaa labadii la dhashay Dana oo banaanku sugayeen Shin si ay u afduubtaan. Waxayna dhahayaan tan ma soo bixayso maxaa ku dhacay maanta. Kadib waxay soo galayaan gudaha hoteelka ayagoo iska dhigaya nin iyo naag isqabo si uu ogaada inay Shin joogto weli ama inay baxday. Kadib waxaa qabanayaan Yang wuxuuna ku dhahayaa maxaa rabtiin oo niga caawiya. Asaga wuxuu ku dhahaa qoftan xaaskayga wax xaamilana waayo waxay u baahan tahay suuliga. Ayagoo wada hadlaya waxaa meesha soo maraysa Shin. Markay arkaan Shin labadooda banaanka ayuu soo baxayaan. Shin markay shaqada soo dhamaysto ayadoo taleefanka iskaga hadlayso waxaa wadada u galayaan labadii. Ayadan waxay weydiinaysaa maxaa iga rabtiin wadada iyo baneeya. Ayagana waxay dhahayaa anaga waxaa dadka Safiya ugu sameynaa masaajka kaliya soo raac gaariga si aan kuugu sameyno. Shin waxay ku dhahayaa war idinka masaajkiin iyo aabiin ma aqaaniya wadadan iyo baneeya. Labadooda waxay dhahayaa war qoftan wax mu fahmaysa aan soo qabano. Ayagoo sii jiida Shin waxay soo baxsanaysaa sunta indhaha dadka loogu buufiyo. Shin dabaalnimadeeda intay ayaga indhaha ugu shub lahayd ayada iskaga buufinaysa indhaha. Kadib waxay qabanayaan labada gacmood ayagoo kor u haaya ay gaariga saarayaan. Kadib waxaa arkaynaa Shin saaxiibteeda oo ku sugayso maqaayada. Markay soo daahdo waxay dareemaysaa inay wax qaldan yihiin maadaama saaxiibteeda isaad u soo daahday. Waxay imaanaysaa hoteelka si ay u ogaato wixii ku dhacay Shin. Waxayna meesha ku arkaysaa Moon waxayna u sheegaysaa in Shin ay ku balansanaayeen baarka aysan u imaanay maxaa ku dhacay gabadha. Asaga wuxuu ku dhahayaa aniga maxaa ka ogahay wixii ku dhacay. Ayada mar hore ay soo baxday. Labadii Shin waxay geenayaan meel cidla ah waxayna ka xirayaan Shin labada gacmood. Shin waxay furanayaan afka waxayna ku dhahay war aniga faqiir ayaan ahay lacag cideeda ma hayaan. Hadaa rabtiin kaliya waa iga baxsan kartiin. Xataa kaliya xataa ma fiicin qamar badan ayaan cabaa. Aniga jirkeyga meel ka fiican ma lahan. Walaalayaal iska fasaxa. Ayagana waxay ku dhahayaa aniga waxaan rabnaa in aan u arno walaasheena maadaama ay herweys ninka ay jeclay. Ayaga markay baxaan Shin waxay bilaabaysaa inay la hadasho Siri. Waxay ku dhahaysaa oo ku baryaa Siri iyo wac booliiska. Siri intay u wicleed booliiska waxay u wacaysaa saaxiibteeda oo la fadhisa Moon. Waxay ku dhahaysaa iga soo gaara wali afduubtay. Moon wuxuu ku dhahaa meesha joogto ma ii tilmaami kartaa. Ayadana waxay ku dhahay waxaan joogaa meel cidla ah aan aqoonin. Kadib Moon asoo miirleen ayuu gaariga soo qaadanaya. Gaarina wuxuu ku wada xawaara aan caadi ahayn. Kadib markay ay soo laaftaan Daan labadii la dhashay Shin waxay ku dhahayaan war adigoo saan u foolxun ma kaaliyeela ana walaashin ninkay jeceshahay. War walaashin sida u qurxantahay ma aragtid miya. War xataa waxay gash qaliin badan sida aad saa'id ugu qurxanaato. Shin waxay ku dhahaysaa war ninkaas ma soo afduubtiin aan miskiin ayaan iska ahay. Ma iga khaleesiin maanta. Ayaga waxay ku dhahayaan taas ma awood Daanan dilayso. Waxay ku dhahayaan timaa ka xireena ama noo saxiix warqadan ashqada uu tagaysid. Kadib waxa irid laad ku soo furaay Moon wuxuu bilaabay inuu garaaco labadooda. Wuxuu u garaacayaa maxaa ka galay. Markuu labadooda ka soo dhamaado wuxuu soo cararayaa dhinaca Shin. Wuxuuna gelinayaa laabtiisa. Halkaas ayay ku eg tahay qaybta afraad. Ha ilaabin inaa muuqaalka like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay. Subscribe soo dheh channelka.